xaaladda caafimaad ee hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa lagu soo waramayaa in ay tahay mid miir doorsoon ah kadib markii qalliin lagu guuldareystay lagaga sameeyay wadnaha sida laga soo xigtay dhakhtarkii daweynayay. inkastoo ay wararka qaar sheegayaan in uu dhintay Kim Jong-un, haddana warbaahinta lagu kalsoonaan karo ayaa waxa ay sheegayaan in uu ku sugan yahay xaalad aad u liidata. wargeyska toddobaadlaha ee ka soo baxa dalka Japan ayaa waxa wariyay in xubin ka mid ah koox caafimaad oo Shiinuhu u direen Kuuriyada Waqooyi uu xaaladda Kim u sharaxay tifatiraha sare ee wargeyskaasi. dhakhtarkan ayaa sheegay in intii lagu guda jiray booqasho uu horaantii bishan ku tegay baadiyaha uu Kim wadnaha isqabtay kadibna uu dhulka ku dhacay. dhakhtarkii wehelinayay madaxweynaha ayaa isla markiiba ku xidhay qalabka neefsashada kadibna waxaa loola cararay qaybta xaaladda degdega ah ee isbitaal ka agdhowaa deegaankaasi, halkaasi oo loogu sameeyey qalliin dhinaca wadnaha ah. kooxda caafimaadka ayaa waxa ay rumaysan tahay in qalliinkaasi lagu sameeyey madaxweyne Kim uu fududaa, balse daahitaan dhacay uu sababay in Kim uu galo xaalad halis ah. Kim waa uu soo jeedaa, waa ku eegayaa, balse ma laha wax dareen warqab ah, ayaa uu yidhi digtoorkaasi. Shiinaha ayaa markaas kadib waxa uu koox caafimaad u diray Kuuriyada Waqooyi si ay talo bixin u sameeyaan, sida laga soo xigtay dad arrintan xogogaal u ah. wafdi ka socda qaybta xiriirka caalamiga ee xisbiga xukuumadda Shiinaha ayaa sidoo kale Khamiistii ka degtay magaalada Beijing ee dalka Shiinaha, iyagoo ka yimid dalka Kuuriyada Waqooyi, sida ay warbaahinta Reuters ka soo xigtay qof goobjoog ah isla markaana xogogaal ah. arrintan ayaa imanaysa iyada oo wargeyska fadhigiisu yahay Seoul ee Daily NK uu horaantii toddobaadkan uu sheegay in madaxweyne Kim Jong-un uu ka soo kabanayo qalliin dhinaca wadnaha ah oo lagu sameeyay 12 bishan Abriil. madaxweyne Kim oo ay da'diisu tahay 36 sano ayaa muddo dhowr toddobaad aan ka soo muuqan warbaahinta dawladda, taas oo shaki gelisay xaaladiisa caafimaad. inkasta oo Kuuriyada Waqooyi weli aysan shaacin cidda bedeli doonta haddii uu geeriyoodaanba xaalad caafimaad darteed uu shaqayn kari waayay madaxweyne Kim, haddana khubarada ayaa rumaysan in xilkaasi ay qaban doonto Kim Jong-un gabadha la dhalatay.